بسم الله الرحمن الرحيم xubnaha golaha wasiirada ka jooga mas'uuliyiinta kale halka joogta maamulka iyo ardada jaamacadda City Court aad baad u mahadsantihiin runtii sharaf weyn bay noo tahay inaan maanta inagala soo qayb galno furitaanka dhismaha cusub ama xarunta cusub ee jaamacadda waan u rajaynayno haddii Ilaahay idin ka dhigo bilow fiican inay tahay dhismaha kan iyo isbeddelka korriimada ku socda jaamacadda waxaan ku faraxsanahay muddada ay jirtay ardada ay soo saartay iyo heerka ay gaartay waxaan u rajaynayaa Ilaahay idinkiis guul intaan ka badan tacliintu waa aasaaska nolosha bini'aadamka ama horumarka bini'aadamku baahi badan buu qabaa laakiin baahida tacliinta uu qabo waa midda sababta inay dadka nolol wanaagsan ku noolaadaan waxaan si gaar ugu faraxsanahay inay jaamacaddan ahmiyadda saarayso culumta sayniska oo muhiim u ah horumarka bulshadeena rabto inay gaarto insha Allah waxaan rajaynayaa jaamacaddan oo hadda ay ka muuqato koboc ballaaran hadalkiisa halka urur jaamacadaha Puntland ay leeyihiin suuragal maaha inay jaamacadaha qaybtood ka mid noqon taasna waxaan rajaynaynaa inay hirgasho meesha ay doorteen iyo xaafadda ay ku taalana baahi weyn ay jaamacadaha u qabeen waxaan rajaynayaa inay magaalada tan hadda waa qayb koraysa oo kobcaysa waxaan rajaynayaa inay jaamacaddan marka dambe aan soo booqanno iyadoo oo dhismayaal waaweyn ardadoo badan qalabka wax lagu barto aad u kobcay iyo dhallinyarada oo runtii fursad fiican u hesha in ay aqoontooda kordhiyaan inaan la kulmi doonno marka aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan aad noo soo dhaweyseen si dhow aan ula socon doonaa jaamacadda iyo guud ahaanba jaamacadaha iyo tacliinta Puntland oo aan rajaynayno meeshay maanta joogaan in hore looga mariyo haddii Ilaahay idmo waan rajaynayaa marxaladda soo socota inay isu diyaarin doonaan jaamacaduhu inay soo saaraan ardadii ka qayb qaadan lahayd ama shaqaalihii ka qayb qaadan lahaa horumarka Puntland ay tiigsanayso marka waxaan rajaynayaa inay aad ula socon doonaan qorshaha dawladda iyo dalka meesha u socdo iyo dadka waxa ku habboon marka wasaaradda ayaa u xil saaran iyada ayaa inla soo xiriiri doonta aniguna si gaar ah ayaan ula socon doonaa haddii Ilaahay idmo aad baad u mahadsantihiin guul baan idin rajaynayaa iyo horumar iyo inaad gaartaan meesha maanta joogtaan meel ka fiican aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum